xisbiga mucaaridka ah ee wicid ayaa waxa uu sheegay inuu ka xun yahay dilka wiil ka tirsanaa ardayda wax ka barata jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama oo habeennimadii xalay ahayd ay ciidamada booliiska ee Soomaaliland toogteen xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ah ee wicid Baasha Cabdi Gaboobe ayaa waxa uu sheegay in xisbigooda wicid uu ka xun yahay dilka wiilkaasi isagoona hoggaanka ciidamada booliiska ee Soomaaliland ugu baaqay in sharciga la hor keeno askarigii toogtay wiilkaasi sidoo kalena xogayuhu waxa uu ugu baaqay hoggaanka ciidanka booliiska ee Soomaaliland in ciidamada lagu tababaro in qof shacab oo aan hubsidan in ay ciidamadu rasaas ku ridaan waa sida uu xogayuhu hadalka u dhigay runtii arrinta dhacdadaasi waa arrin aad murugo leh waanu ka xunnahay waayo goob jaamacadeed iyo arday iyo dad waliba la sheegay martiin ugu ahaa Soomaaliland إن ما أنت واحد سكون عن والآديات بانو قحنا هاي حتى قدركم مر والبا وماشي ده العدد روتي أرتيجا إلى أن حريسته مركو هراء واحد كنت عسيدين يا أرتيجا فاميلي كيس أهل كيس أصحاب كيس إيو سومالان إيو سومالي با يعدو كذا شيء با والواني سوماليات المر والبا قدرين بنقول ليهين ما أنت نقول أنت ومرحوم آديات بنو تعسينيا الكودي إلهي صبري إيمانها كسيو إسقنا إلهي جنة الفردوس حقيو تامر كيتهاي العدد السيسلا ودعلي روتي ووركذا وحويان عند قدر هرتو ماشي يمين لكن أرضي قاسي خلافين عسكرية قدر كيسنو ماشي يالو أنت كلي روح الباهية إن أسكرتو أي تببر في عن إلى الحيوان وروتي إن قريجة منكم مرة توقف في السيفلي هاي وأنا قري سيدان ووحوب سيدان إن قري لولا هريماتو إن مرور باطاسي أنا في عينين مرور بدنا ولا قاعدي إن تحسنا واحد كتوس الساعة إن ولي أسكرتينو إن إيا هجانك إن أسكرتها أي بوليس كنا جنرال هذا waxay u baahan yihiin in askarta tababar dheeraad ah inay siiyaan kuna wacyigeliyaan in qori qof civil aan loola hortagin waayo xabadu waa taa faraay ka baxaysa in markaa tababar dheeraad ah oo aan ahayn qoriyo oo wacyigelina oo civil rights ka qofka muwaadinka iyo qofka joogaba inanku Soomaaliland qof kasta oo sharci ku jooga Soomaaliland wuxuu la siman yahay qofka Soomaaliland wuxuu kaga duwan yahay oo kaliya waa xuquuqda siyaasadeed laakiin xuquuqdii kale dhan way wada leeyihiin ammaankiisa la ilaaliyo sharaftiisa la ilaaliyo nabadgelyadiisa la ilaaliyo inankana waxa uu ahaa arday marka aad iyo aad baan uga xunnahay shacabka Soomaaliland waxaan leenahay qadarkaasi uu dhacay waxaanu ka sugaynaa oo ka war sugaynaa in hoggaanka ciidamada ama booliiska inay tallaabadii sharciga ka qaadaan in la baaro si fiican qoto dheer loo baaro siday wax u dhaceen marka wixii siday wax u dhaceen in cadaaladda la horgeeyo waanu daba taagnaanaynaa waayo fadhacdadaas oo kale maadaama aan xisbi siyaasi ah oo inoo khusaysaa waxaan inoo khusaysaa magacii Soomaaliland ayaa inoo wada khuseeya ammaankuna waa waxa kaliya waa waxa ugu weyn in ku faano marka in aayar askariintu qori iska qaato siid keeb kuul iska qabto siday totaha u dhacday waa wax laga xumaado marka aad iyo aad baan u baraarujinaynaa hoggaanka booliiska in arrintaasi way dhacday laakiin maanta waxa laga sugayaa inay baaritaan qoto dheer inay galaan oo qofkii dambiga lahaa iyo askarigii iyo siday wax u dhaceen in cadaaladda mariyaan Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen Television Cable Hargeysa